ilaahan ka magan galnay kuwa caqiidadooda inaan qaadano ilaahay baan weydiisanaynaa kuwa inuu naga badbaadiyo toobadoodana xataa ilaahay aqbali maayo sida xadiista nabiga ku qoran alayhi salaatu wasalaam ma aqbala ayuu rasuulku laa yaqbalu allahu ilaahay aqbali maayo ruuxa mubtadica tooba ilaahay ka aqbali maayo salaada hadduu tukado ilaahay ka aqbali maayo hadduu soomo soonka ilaahay ka aqbali maayo hadduu zaka bixiyo zakada laga aqbali maayo yadcuuna ilaa kitaabillaah dadka waxay ku hayaan kitaabka ilaahay imaada kitaabka ilaahay ay ummadda ku qaldayeen waa midka gabdhaha ay maanta leeyihiin xitaa dharkoodii hoose ay ka hadlayaan xishood darre meeshay ka gaareen halkaasay marayaan oo gabdhaha sigisaantoodii ay ka hadlayaan oo dharka hoosoo dumarku ayagu ikhtiyaar ay leeyihiin inay qaataan bay ka hadlayaan oo wiilasha masaakiinta gacmahoodii ay bilaash u jarayaan oo odayaasha waayeelada dhagaxa ay la dhacayaan oo gabdhaha saqiirada ay dhagaxa kala dhacayaan madaxa oo qofka inta soo qabtaan ay leeyihiin allahu akbar sida inay joogaan ciidul adxa inay marayaan badumooda ciidul adxa badumooda inay marayaan ciidul adxa waa meesha ay maanta marayaan oo heerka ay gaareen waad u jeedin walaalayaal nabigeena markuu ka digay bal u fiirso yadcuuna ilaa kitaabillaah walaysuu minhum fii shayin dadka waxay leeyihiin kitaabka ilaahay ayagu waxba kama haystaan buu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam iimaankooda dhan maxaa la yidhi laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum iimaankoodu halkaa hungurigaa ma gaarayaba halkaa hungurigaa ma gaarayo nin walba uu isberiyeelaya wuxuu ku leeyahay dadka caamada waxyaabaha hadda ay ku qaldaan waxaa ka mid a maya annagu waxaan nahay ahlu sunnihii baan nahay ku leeyihiin ma intaas qaladahoon soo sheegna ahlu sunno lagu noqdo walaalayaal intaas qalada qof aaminsan oo meel la taagan oo baadilka ummadda u sheegaya salaadii aan u gudubna marka salaada maxay u geysteen waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo mar walba oon bidcadii iyo meelo laga sheekeeyey salaada maa laga sheekeeyo oo soonka maa laga sheekeeyo waad ogtihiin walaalayaal salaada annaga mugdi noogama jiro salaadu waxa weeye waa tiirka labaad oo arkaanta islaamka aan si fiican u tukanno ku dadaalno salaada markaad tukato ajirka leela waad ogtihiin salaadu waa shayga ugu horeeyo addoonka qiyaamada laga xisaabinayo laakiin kaba ha ku tukan laakiin adoo nijaas wata ha tukan ilaa nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yaqbalu allahu salaatan biqayri dahuurin ilaahay salaad aan dahaaro lahayn kaa aqbali maayo ina allaha yuxibu altawaabiin wa yuxibu almutadahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa isdahiriya oo daahirka iska dahiriya oo baadinka iska dahiriya oo nijaasta xisiya macnawiya loo qaybiyaahe mid muuqata iyo midaan loo jeedin kulli iska dahiriya ilaahay baa jecel nabiga ilaahay baa qur-aanka noogu sheegay aan iska dahirino baadilka hadda dhulkaa bannaan meeshaa waxa weeye aan gogosha lahayn oo kabaha lagula taagan yahay oo eeyuhu hadday rabaan jidka ay maraan oo hadda laga soo galo hawlka aan ku jirno adigoon gogol iska dhigin oon mara fidsanin salaada maqrib hadday soo gasho ama duhurka uu soo galo ama casirka la gaaro ma ku tukan karnaa maya ma la ogola in lagu tukado ma samay karnaa sigisaanta inaan masaxano oo waxa weeye aan sigisaanta inta iska masaxano waxa weeye aan iska tuktukanno ma suuragelayso iyaduna ma banaana ayagu marka fiiri salaadii ma aysan nabadgelin dadkii waxay amreen sidii raba in laga yeelo maxaa noo baaqi marka maanta salaadii waxay dhaheen sigisaantaad iskaga tuko hadda khufka nabigu uu sheegay sigisaan maahan waa shay kaba ahaan loo isticmaalo oo lugaha inta la weese qaato lagu xirto oo asaga kaba ahaan loo isticmaalo lagu socdo oo nijaas aan lala marin oo markii biyaha sidaa dusha looga shubo lacalla haddii biyo lagu shubo aysan biyuhu ka dusi karin wa an yakuuna maanican linufuudi ilmaa shuruuddiisu ka mid yaha qofka
وإنه هذا شيء منع كرا إنه بيكدسان إلا محل القرس إليهم إلا ما يشعر كتو ليه معهاني سيجسان تنبيوه كوذا الدسيان أو بركة لا تكون في معنى الخف خفك النبي محمد شاقي يعني لا يدنكو قلب سيجسان معهين صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام كبن نجاسة صلاة كمتو كان بدعادنا كبن نجاسة يقول وتيتو كدان مركب ما بكو حرا كرنا صلاة ما بلغو حرا كرابا حتى وحي كهد لأن علماء الإسلام قبضنا هذا إن لو قري أن يصبرنانين منين أورانا يا النبي محمد صلى سيادم بها قبرسي سنيسين منين نبي محمد توحيد كيسي إلهي توحيد كيسي أما قرآن كي إلهي جامع قرآن كوا بوك أورانا يصاب لكو الطورية ما قبضي إنه قرتين إلهي وصاب حرمة رأيه ما قبضي إن النار لدونيسين ولا ليال إلهي أن كعب صنو أدون كان لتشوغي مايو ووصية ودردارا ودحلك الرسول كعلماء وحي نوشيغيس عليه الصلاة والسلام قفكي ما أنت فوضيست يرى لبع علماء اسقلاف سنات أنو ميلا آدم ما قان ما كم بان راعة مسا كم بان راعة نمبا هذا كون انت لها اللي وحو يري أنو نمان كاس ميلا كقاتو يري أهل السنة هنا ميلا كقاتو يري أيها وحن كقاتبو يري وحوال بفضيت كان كنت على هذا الشقة بكاب باقا ما يسابو يري أضيقوا حتى الشقينا وحي كليهين شقة هذا يسكوضو عاود اسكدب ما يسترانيه صلاة شقة اسكوضي كليهين بو يري كباها جايس كسيبين قعنتا ساو مري بش داد وسقا قعنتا بس كريا كركب مري اسكنا تكو ايوه كوغو جيره وفضيت وحول بابا غوريغا marka tagto zawjadaada iska salaan daamanka ka dhunka hadhowna iska tukada saad u qosleydin maalin iskaga joogtiin dibba ma lahanba laakiin wuxuu radad hal sunnatihiin dibba noo disheen buu yiri aniga leegu yiri qof kale macna kama hadlayo هذا ولا ليال دين أهل السنة ماله إلهي باله شخص ملهن شيخ فلان ماله شيخ فلان ماله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام هذات كبا كنت كله هيدين نجاسة إيه هذات إلهي كبقي لهيدين والصلاة صح كله هيدين قف والبو أدقي الصلاة ضاضة إلهي باكل حساب تمي أبها قراء مايو هو يدا قراء ميسو قبرك وحا كلا جليا وعمل كاغا وكلاه يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى معه واحد بولي النبي صلى الله عليه وسلم سدح شيبا قفك مركا قبرك الله وضو قبرك الراعة سدح ذا شيء وحا كوهريا وعمل كاغا كلاه وادقي الصلاة دادي وادقي عقيدة دادي وادقي التوحيد كاغي وادق يصلي حدي آدم الدنيا مركا تشوكتو إلهي كبقي جيرين وأدون دورسان آدم هاين قيامة ما حد إلهي اللي هرتقي دونتا ولا ليالو إلهي أن كبقنا وصلاة بأن أن هجاتشنو يان دين تبدع الله هاللين يان دين تبدع الله هاللين دتك الدين تقلدي يان دين الله هاللين يان دكسيادو هذا وقت الله قلوا من علمه إن مال هلاك هجيننا ولا ليال meel lagu halaagsama ilmihiina hageynina oo naftiina halaag ha u jeedinina oo maanta waxaad og tihiin maalin dhow baa naloo sheegay nin kismaayo jooga oo qoladan bidcada kamid ah aabihii baa dhintay baa la yiri markaasuu yiri ka qayb geli ma janaasada aabahay maxaa dhacay baa la yiri gaal buu ahay goor aabahay waxaasi ka dhaadhiciyeen waxa ilmihiinu gaari doonaan جنازتنا إني كقيب قلي ويان ورد يكو أخريان إسكداف قرآن أي كو أخريان إسكداف حتى هو إني كنت كويان آبا إني كنت كويان محاكا حمان بدن ولا ليالو موضوع وان سوكو بيا وحن كو سوكو بيا بدعادو راب كأي نوغي ستي وامدك الدلك يعني الرغي وامدك الضدك النقوبي وامدك الدين لأن التاجيي وامدك صوبانيه النقود ولا ليالو إلهي أن كبقنا أن يسعفنا أن دينت إلهي أوضا قرقارنا وحان هذا الكي كسو كوبيا إلهي عبسيدي سو نسكو دردارنا كحرنان النبي محمد نسكو دردارنا
kudayashada culumadeennii wanaagsaneed oo markay nabiga magaciisa sheegaan ilimay jiray jacayl inta nabiga uga qabaan calayhi salaatu wasalaam magaca nabiga markay sheegaan ilin soo daadi jiray oo kitaabka qur-aanka dhunkoo jiray oo looxa kor u qaadi jiray intay jacayl uga qabaan oo culummada ixtiraam intay ugu qabaan labada gacmood ku salaami jiray oo qofka u ducay jiray ee ducadooda la heli jiray ma ku dhaganaanaynaa walaalayaal ma ku dhaganaanaynaa wadadeennii wanaagsaneed mase bidcaan raacnaa walaalayaal kala doorta wax laysdoorigeliya maanta ma aha allaahuma wafiqnaa lisawaab allaahuma wafiqnaa lima tuxibu watardaah allaahuma inaa nasaluka xusna alkhaatima allaahuma inaa nasaluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyuka muxamadi sala allahu calayhi wasalam wanacuudu bika min shari ma stacaadaka minhu nabiyuka muxamadi sala allahu calayhi wasalam waaqulu qowli hada واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متكاسوح وها شيخ أنا شيخ محمود إلهي أجري حسنا هكسي موضوعي آدي نوعا فعي بدعاء إيرادتك إذا كهل يا أنت سمعوا ماضي